بسم الله الرحمن الرحيم وبين أستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين waxaa ilaahay aan uga mahad celinayaa safarkii dheeraa aan ku tagnay magaalada Muqdisho ee aan kaga soo qayb galay doorashadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dhacday 15 May oo ku aadan maalin taariikhi ah maalintii dhalinyarada ah aan isleeyahay hadda kadib waxay ku asteysnaan doontaa xuska 15 May iyo doorashada madaxweynuhu إن شاء الله إن نقول دون تمد إسراع دونتا أولاً وحان ربا إن سو دوي دور الشغل أصل علي هي النتيجة ذا وحان ربا إن آذو بهاد عليو وانوهم بليايو مدحوينا حلك كوكو ليستي مدحوينا حشق محمود وحان ربا وكلا إن أمهاد عليو مدحويني حلك كده محمد عبد الله فرماجو وسنة مدقلياه وأقبل دور الشخص إلى ودعنا مسؤولية دينا سلاس كو أقبل كنا وريتشين أنا أهيد حلو وريتشين أما دور الشخص تاريخي صوبته هول كي شلع اللبض وقري يسود ديبان ما أنت يسود ديبان قري يسود ديبكي وعمدان آديات مسؤول وين الوقوف الحصلنا وحكلا الوقوف مع علينا يا مدحوين حسن محمود باقي سيها ضد صوماليات وهشيسة dowladaha caalamka la heshiisa horumar iyo amniga ka shaqeeya oo aan filayo inuu maanta ahaa qofkii ugu khibradda badnaa intii tartamaysay aanan islahaa qofka ugu habboon ee maanta hawshaas geli lahaa buu ahaa taas aad baan uga mahad celinayaa una soo dhaweynayaa waxaa kaloo rabaa inaan u mahad celiyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ahayd Mr. Roble oo aan isleeyahay ama aan u arkayay juhdiga uu bixiyay inuu ahaa mid aad iyo aad u culus oo nafti horannimo wana ku guuleystay in doorashadaasi ay dhacdo isaga iyo intii ku garabsiisay ay ugu horeeyeen gudiyadii doorashooyinku iyo kadib markii baarlamaanka la soo saaray gudidii hogaankii ku meel gaadhka ahaa oo ahayd labadii qof ee ugu da'da weynaa oo iyaguna dadajiyay inayna muddo yar xataa sii joogin xilka ay noqotay inay dadajiyaan sida ugu dhaqsaha badan ee doorashadu ay ku qabsoomi lahayd iyagu ay isaga wareejin lahaayeen iyo guddoonkii la doortay oo ah labada guddoomiye baarlamaan cabdi xaashi iyo guddoomiye sheekh Aadan Madoobe oo iyaguna aan leeyahay laba oday oo soo shaqeeyay oo taariikh wadanka ku lahaa bay ahaayeen oo aan isleeyahay sanadkan hadda dadka maamulka soo galay kulligood waa dad hore taariikh la yaqaano una ku jira qof aan isleeyahay qofkaasi ma la baran doonaa mise waa kulli ay yihiin dad la wada yaqaano oo qof wala Soomaali maanta uu garanayo mid kastoo iyaga ka mid iyagana aad baan u soo dhaweynayaa waxaan aad u soo dhaweynayaa oo aan u bogaadinayaa doorashada ay qabteen iyo siday u soo qabteen madaxda dowlad goboleedyada saaxiibaday oo aan aniguna ku jiro oo aan leeyahay waxay qaateen door shariif ah waxay wax walba ka hormariyeen doorashada inay qabsoonto waxay shaqo walba u joojiyeen in doorashada wax walba ay ka hormarto iyagana aad baan u soo dhaweynayaa madaxdaas dowlad goboleedyada waxaan la iloobaynin doorkii ay lahaayeen gudiyada doorashooyinku ama fiid ha noqoto ama gudiyada heer state ee siid ha noqoto waliba aan ku baaqayo madaxweynaha cusub iyo xukuumadda la dhisi doono iyo madaxda dowlad goboleedyaduba gudiyada doorashooyinku waxay ahaayeen gudiyo tadxiyo sameeyey naftood horannimo sameeyey iyadoo ogtihiin inay nabadiidku gudiyo iska daayay ergooyinkii ay la hanjabayeen intaas culays u jiray inay garteen inay naftooda u huraan dalkooda waan oran karo waxay ahaayeen dad u calool adeygay isu dhabar adkeeyey ka qayb qaatay xaalad adag oo wadanku ku jiray ka soo saaray sidaa daraaddeed waxaan ugu baaqayaa madaxda aan sheegay inaan la iloobin dowrkoodii inaynan noqonin wax intii mar la isticmaalay laga gudbay ee gudiyadaas loo sameeyo maamuus loo sameeyo shaqo qof waliba wuxuu qaban karaya haddii ay noqoto guddigii guud ee doorashooyinka qaranka iyo hadday noqoto safiiro
iyo hadday noqoto in dowladda lagu soo daraba in xubnaha guddiyadaas ku jira oo ugu horeeyo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo guddiyada kaleba in kulligood aan si gaara ugu hambalyeynayno aanan leeyahay xukuumadda iyo mas-uuliyiinta soomaalidu waa inay ogaadaan heer gobol iyo heer federaalba in dadkaas xuquuqday leeyihiin ay helaan marka laga soo tago intaas waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinta reer Jubbaland gaar ahaan gobolka Gedo oo culaysyo badani sanadihii la soo dhaafay ay naga haysteen gaar ahaan xukuumadda xilligaa jirtay iyo isqaqabsi siyaasadeed Jubbaland uma baahna isqabqabsi uma baahna siyaasadda iska hor yimaado wax culays siyaasadeed oo maanta qofna qof ku hayaa ma jirto waxaan u baahannahay Jubbaland mid ah shalay Jubbaland dib u heshiisiin iyo wax ku dhisatay maantana tiibaan diyaarunahay ma jiro qof Jubbaland oo maanta aan intaa in lagu qabno waxaan rabnaa dadku inay iscafiyaan waxaan rabnaa in la isdhaxmaro waxaan rabnaa in qof waliba xuquuqda muwaadin ee uu leeyahay inuu qaato haddii ilaahay idabkeeda leeyahay waxaan rabaa inaan u soo dhaweeyo oo aan bilowno gobolka Gedo caqabadihii jiray inay intaa ku ekaadaan waxaan rabnaa inaan ka bilowno kawnsiladii sidii qorsho u ahaa markii horeba ay garbaarri ugu horeyn doonto haddii ilaahay yidhaahdo in maamulkii la daadejin doono inayna u baahnaanaynin hebel baa lasoo magacaabay iyo hebel baa lasoo magacaabay deegaan walba ay dadku iyagu soo dooran doonaan maamulkooda ood garanaysaan daadejinta maamulku saddexda leebal ee dowladnimo heer federaal heer state iyo heer dowladaha hoose iyo deegaano inay intaasba ay noqonayso jaro shaqada ugu badanna ay ku dhacayso middan kawnsilada ama deegaanada dowladaha hoose la sameynaya haddii oo dadka waxa toos u matalaya ay tahay qof walba waxa uu qaban karaa loo dirayaa waxaan isku dayaynaa inaan dirno maamullo markaan dadka shir u qabanay la isu yeedho kadib capacity u leh mug u leh qaadi karaya mas-uuliyadda dadku ay ku qanacsan yihiin haddii ilaahay yidhaahdo waa la tegi doonaa mas-uuliyiinta oo dhan xildhibaan ha noqdo wasiir ha noqdo cid walba oo gobolkaas iyo Jubbalandba ka soo jeedaaba wasiirada wasaarad waliba waxaan rajaynayaa inay shaqadeeda geli doonto waxaan raacinayaa in gobolkaas oo mashaariicda iyo wax badan ay ka taagnaayeen maanta laga bilaabo la sii daayo oo loo bilaabo oo socoto dhammaan mashaariicdii ama heer state ha noqoto ama heer dowladda federaalka ha noqotee wixii gobolka ka baaqday in la dedejiyo haddii ilaahay yidhaahdo dadkuna la iscafiyo qof maanta aan wax u qabnaa ma jiro qof walba oo wax tuunsan ama isle ama waxaabaa la isku qaqabtay ma aha idinka ma ahayn waxa la isku hayeen siyaasad ka baxsan bay gobolka waxa kaloon ku soo ururinayaa culayska Soomaaliya jiray dhowr sano 4 sano la soo dhaafay waxa ciidamadu ay ku mashquulsanayeen siyaasado iyo dana kale waxaan rabnaa in loo soo jeesto la dagaalanka shabaab waxaan uga faa'iideysanaynaa waliba iyagoo oo ay hadda dowladihii naga caawin jireen go'aano qaateen in arrinta la dagaalanka shabaab la xoogeeyo la awoodeeyo dagaalka lagu talagalo loo wada hayto inaan midaas soo dhaweyno waan u baahannahay inaan ku talagalno askariga annaga shaqo kala qabanaya maanta qoriga aan haynay si kale loo isticmaalay in kulliga aan isugu geyno la dagaalanka shabaab xormanihi deegaanadeennadii baa la haystaa dadkayga waa dhiban abaar hadday ku dhacday hadday fataxaad ku dhactona waxba uma qaban karayno aan culayska saaro waxaan u baahannahay hal qorshe dagaal oo Soomaaliya oo la qaado hal mar oo aan ku talagalno inaan midkaas kaga jawaabno shabaabna aan deegaanada kaga xoreyno biidinillah 3 bilood ma qaadanayso arrinta hadday aanu samayno marka madaxweyne xasan sheekh oo horeyna dagaalkaas qayb libax la uga qaatay garanaya wuxuu ahaa maanta ninku cusub aan ahayn waxaan aad ugu soo dhaweynayaa waana ka wada hadalay inay arrinta 1 iyo 2 iyo 3 u tahay in deegaanada la xoreeyo dhulka la isu wada furo shabaab si wada jira loola dagaalamo kaliya waxaan ku darayaa inuu noqdo mid qorshaysan oo hal mar la wada qaado kaasaana cadowga kaga faa'iideysan karaa waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa dadka Soomaaliyeed dowladdaana in lala shaqeeyo waxa maanta inoo dhiman ay tahay inaan intaas kala uga sii dhawaano Jubbaland ay tahay horgal haddii ilaahay yidhaahdo waliba gogolaha ugu horeeyana iyadoo ay dhigi doonto aad baad u mahadsantihiin. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.